wuxuu qabaa 12 xaas, wuxuuna dhalay 25 carruur ah, balse wuxuu korsaday 9 carruur ah oo uusan isagu dhalin. Wuxuu yiri, weligay waxaan ku haminayay inaan guursado 20 xaas, balse hadda 8 ayaa iga dhiman tiradaas oo 12 ayaan guursaday. Arrinta la yaab kale ayaa ah inay hal guri ku wada nool yihiin 12 xaas, sidoo kalena ay hal meel wax ku wada cunaan. Hadda isaga ayay cunto afka u gelgelinayaan, weliba si halhaleel ah. Wuxuu yiri, isma dagaalaan, iskumana buuqaan, ismana khilaafaan, oo wax kasta heshiis ayay ku yihiin, xitaa aniga heshiis ayay igu yihiin. Waxaa la weydiiyey sida ay habluhu ugu heshiiyeen qolka jiifka, isaguna uu kala maareeyay xilliyada jiifka. Wuxuu ku jawaabay, mid ayay u kala leeyihiin habeenada, oo mid kasta habeenkeeda ayay imaanaysaa marka laga reebo xaaska ugu weyn xaasaskayga oo iyadu leh 2 habeen oo asbuuca ka mid ah. Waxaa la weydiiyey sababta ay xaaska ugu weyn ku yeelatay 2 habeen iyadoon hablaha kale heli karin xitaa min habeen. Wuxuu ku jawaabay, 16 sano ayaan isqabnaa xaaska weyn, waxayna ii dhashay 8 carruur ah, waana sababta ay 2 habeen ku yeelatay asbuucii. Mid ka mid ah xaasaskiisa ayaa mar maqashay in la furi rabo, waxayna ka xaday lacag fara badan, iyadoo aaday guriga hooyadeed. Intaas kadib waxay tiri, marka aan tagay guriga hooyaday waxaan maqlay cod hoose oo ka yeeray guriga hooyaday, kaas oo igu leh u tag ninkaada. Markasta codkaas uu igu soo noqnoqonayay oo waan maqlay codkaas. Waan u tagay ninkeyga, laakiin ima uusan garaacin oo wuu i cafiyay. Ana mar dambe kama aanan tagin guriga. Taasna waxay shaki badan gelisay dadka aaminsanaa in ninkani sixirow yahay. Wuxuu sheegay inuu yahay dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud, balse mar uu jabiyay xeerka karoonaha ee waddankiisa ayaa xabsiga loo taxaabay. Waxaana lagu eedeeyay inuu naagaha badan xoog ku haysto oo uu guursaday in ka badan inta ragga waddankaas guursadaan. Wuxuu sheegay in booliska waddankaas ay u tageen xaasaskiisu iyagoo ka codsaday in loo soo daayo ninkooda, maadaama ay iyagu raalli ka yihiin oo ay ku qanacsan yihiin inay hal guri ku wada noolaadaan. Sheekadan ayaa ah sheeko ka yaabisay dadka ku nool Koonfur Afrika iyo dadyooda ku nool dunida oo dhan. Fadlan daawade muuqaalkan sii share garay, sidoo kale like raaci, sidoo kale ha hilmaamin inaad YouTube channelkeena subscribe inoo saarto, sidoo kale qaybta commentiga nagula wadaag waxa ay kula tahay sheekadan iyo sida aad u aragto. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina.